Nala joog ilaa fiidiyowga dhammaadkiisa si aad u fahanto qisada oo dhan. Assalaamu calaykum. Soo dhawaada saaxiibadeena ku xiran kanaalkan sheekooyin. Magacaygu waa Cabdiraxmaan. Tanna waa qisadeedii cabsida badnayd. Ha iloobin inaad subscribe nagu dhiirigelisaan. Haddii qisadu ku cajabisana like saar. Haddii aad rabtiin fiidiyo noocan oo kale ahna, commentiga nagula wadaaga. Qisadani waxa ay dhacday sanado ka hor. Waxaan guursaday saaxiibaday, taasoon isla dhiganaynay jaamacadda. Waxaan ka wada hadlaynay toddobaadkii ugu horreeyay guurkayga. Waxaan ku idhi sideed u aragtaa inaan ku qaadano xeebta. Waxay nagu tiri maya, sababtoo ah maxaan lacagteen oo dhan ugu bixinaynaa si aan ugu qaadano xeebta. Haddaba maxay kale ayaad haysaa ayaan ku dhahay. Waxaanay igu tiri sideed u aragtaa inaan ku qaadano buuraha, sababtoo ah waxaa dhow waqtigii uu barafku imaanayay, taasoo aad u wanaagsanaan doonta dhab ahaantii. Waan ilowsanaa inaad Fariidan aad jecelahay tahay. Waxaan go'aansanay taa. Waxaan internetka ka baadhaynay makhaayad buuraha ku taala. Haddaba waqtigii aan sidaa ahayn, waxaan helnay qolalkii oo dhan. Waxaanan ogaa goob loo yaqaano Manaasil. Sidaan ogahay lambada ayuu guriga ku leeyahay meel kasta. Qiimihiisuna waa mid aad u jaban. Waxaan u maleynayaa inay fikrad fiican tahay. In yar ayaan sii baadhnay. Kadib waxaan helnay qoys soo bandhigaya qol gurigooda ka bannaana, kuna yaalay buuraha. Waxaan soo dhaweystay sawirkii. Xoog ayaan u eegay. Qoysku waxa uu ka koobnaa nin da' ah, xaaskiisa iyo labadiisa inan. Guriguna waxa uu ekaa mid aad u qurux badan, kaasoon ka helnay labadayaduba. Waxaan isku daynay inaan la xidhiidhno ninkii guriga iska lahaa. Kadib markii aan la xidhiidhnay ninkii guriga iska lahaa, waxaan qabsannay ballan. Waqtigii bixitaanka, jawiga waxa uu ahaa mid barafaysan. Barafkuna waxa uu bilaabmay ayaamo ka hor, taasoo xasna ka dhigtay mid aad ugu faraxsan rixladan. Waxay noqon doontaa ayaamihii igu wanaagsanaa noloshayda. Waxa aan ku dhahay, ha ka sii hordhicin, qabowguna aad ayuu u darnaa. Waxaan soo raacnay baskii. Waxaanu nagu dejiyay meel u dhow guriga. Waxaana ku dhammaysanay intii kale lug. Waxaan soo gaadhnay gurigii. Waxaana naga furay mid ka mid ah inamadiisii. Assalaamu calaykum. Magacaygu waa Cabdiraxmaan. Mar hore ayaan la soo xidhiidhay waalidkaaga. Waxaana ka qabsaday qol aan isbuuc deganaan doono. Soo dhawaada. Waalidkaa guriga ma joogaan? Waalidkay waxay u safreen magaalada ayaamo kooban. Anaana ka mas'uula halkan. Waxaana idin kaxaynayaa qolkiina. Waad mahadsan tahay. Magacaygu waa Xasan. Kana waa walaalkay Ayuub. Waad naga dalban kartaa wax kasta ood u baahan tahay. Wuxuu noo kaxeeyay qolkaygii. Waxaanan fadhiisanay halkii si aan ugu nasanno. In yar kadib, waxaa la qaraacay albaabka qolka. Waxaan furay albaabka. Waan ka xumahay intaan idinka nixiyay. Waan dhammaynin karintii cashada. Haddii aad gaajoonaysiin waa noo iman kartaan. Waad mahadsantihiin. Namaad naxdin gelin. Halkan naxdin ma jirto. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan joogno halkan. Waxaan imaanay qolkii cuntada. Waana la fadhiisanay si aan ula cashayno iyaga. Waxaan bilownay inaan cunno cuntadii, kuna bilownay hilibkii. Aad ayay u macaaneyd. Waa hilibkii igu macaanaa noloshayda. Ma hilib adhiba? Labadii nin waxay bilaabeen inay igu qoslaan. Maya, waa hilib deero. Waxaana soo gaarsanay ayaamo hore. Aad ayuu u macaan yahay. Waxaan dhammaynay cuntadii. Cabbaar ayaana sheekaysanaynay. Labada walaalaha ahi waxay ahaayeen kuwo aad u fiican. Subaxdii xigtay, waxaan go'aansaday inaan u baxno dibadda. Laakiin Xasna waxa uu ekeyd mid xanuunsan. Miyaanad diraacayn? Waad arkaysaa xaaladayda Cabdiraxmaanow. Waa inaad baxdaa kaliga. Anna waxaan ku noqonayaa hurdada. Waxaa laga yaabaa inaan fiicnaado. Maxaa kugu dhacay? Maxaana dareemaysaa iminka? Waxaan dareemayaa xanuun aad u daran xagga calooshayda. Waxaa laga yaabaa inaad cuntay hilib aad u badan habeenkii ugu dambeeyay. Haa, waa laga yaabaa. Iska bax. Waxaan ku noqonayaa hurdada in yar kadib. Waxaan bixi doonaa si wadajira beritoole. Ma aanan doonayn inaan baxo kaligay la'aanteed. Laakiin way ku faraxsanayd inaan baxo kaligay. Si aanan uga qasin rixladeeda, waxaan baxay kaligay. Waxaanan kaga imi qolkii. Aad ayaan ugu faraxsanaa meesha. Aad ayayna u qurux badnayd. Waxaanay ahayd meelihii ugu wanaagsanaa ee narka noloshayda. Aad ayayna ii soo jiidatay dhab ahaantii. Laakiin maskaxdaydu waxa ay ka fikiraysay xaaskaygii xanuunsanayd. Waxaan isku dayay inaan waco si aan u hubiyo caafimaadkayga. Waxaan qaatay telefoonkaygii waana wacay. Wax jawaab ah kama helin iyada. Waxaa laga yaabaa inay hurdo. Telefoonkaygiina ay codka ka naaqustay. Laakiin inkastoo taasi jirto, waxaan go'aansaday inaan dib ugu soo laabto guriga si aan u hubiyo xaaladdeeda caafimaad.
Dariiqu waa uu dheeraa soo noqodkii. Xilligii aan soo gaadhay, waan soo galay gurigii. Ma aanan helin qof jooga halkaa. Waxaan tagay qolkaygii. Waxay ahayd naxdintii igu weynayd. Xaaskaygu ma joogin halkaa. Waxaan ka soo baadhay qolalka guriga. Waxa aan helay labadii walaalaha ahaa. Waxay siiyeen jawaab dhammaystiran. Waxaan u soo socday xaggii madbaxa shalaytadeydii. Anigoo halkaa jooga, waxaan arkay shay aan arko kii igu xumaa. Waxaan arkay labadii walaalo oo haysta laba midi. Xaaskaygu waxay taalay miiska dushiisa. Waxay lahayd dhiig, sababtoo ah waa la dilay. Caawa maxaan karinaa? Lugaha ama gacmaha? Waxaan karinaynaa caloosha, sababtoo ah aad ayay u macaan tahay. Laakiin maxaan sameynaa haddii xaajigaagu imaado? Ha cabsoon, waxaan u sheegaynaa inay yara baxday oo ayna soo noqonayso mar dhow. Waxaana siinaynaa hilibkayga si uu u cuno. Marka uu seexdo, isaga waan gowracaynaa. Aad ayaan u murugooday una cabsooday. Waxa aan ka baxsaday guriga intaynay qabanin. Waxa aan ku dhuuntay meel ka fog guriga geedo hoosteed. Waxaana la xidhiidhay askarta. Waxaanay ku timiday si degdeg ah. Kadib xaaladii xumayd, askarta waxa ay soo gashay guriga. Waxayna qabteen labadii walaalaha ahaa ee dilka foosha xun la geystay. Aad ayaad iskugu dhex yaacday. Waxaan helnay jidhka xaaskaaga oo labo kala go'an qaboojiyaha dhexdiisa iyo jidhkii waalidkooda. Waxaa noo caddaatay inay waalidkooda dileen sidoo kale. Naxdintii ayaa igu siyaaday markaan maqlay taa. Maxaad uga jeedaa? Waxay cunayeen hilibka waalidkooda ayaamo badan. Waxaana soo helnay qaybo ka mid ah xaaskaaga jidhkayga oo lagu gubay dab. Taasi ma dhici karto. Ma waxaad uga jeedaa hilibka ay noo keeneen habeenkii ugu dambeeyay inuuna ahayn hilib deero? Waxaan u orday dibadda si aan u soo matago wax kasta oo calooshayda ku jiray. Waxaan ku tagay cusbitaalka si degdeg ah. Waxaan ku soo dhameeyay jacaylkii noloshayda halkaa. Ma aanan iloobin wixii aan arkay. Taasi waxay ahayd qisadaydii. Saaxiibayaal, naftiina ilaaliya. Iskana ilaaliya inaad tagtaan meelo ay dingaranayn. Sidii aan sameeyay. Haddii aad weli like saarin fiidiyoga like saar. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Muuqaal dambe oo xiiso leh.